sawirkan aad u jeedid waa magaalo cusub oo aan qaabkeeda horey loo arag oo dhismaheeda laga wado dalka Sacuudiga ma ahan magaalo u fidsan dherer iyo ballacba sida magaalooyinka aynu naqaano balse waa magaalo hal khad ama hal xariiq u naqshadaysan hareerahana ay ka xigi doonaan muraayado waaweyn oo gidaar u noqon doona malahan jidad ama wadooyin ay gawaadhidu adeegsadaan waa magaalo laga dhex samayn doono saxaraha weyn ee Sacuudiga dhismaheeda waxa ku baxaya 200 bilyan oo dollar waxayna shaqo abuur u samayn doontaa 460,000 oo qof wuxuu Sacuudigu saadaalinayaa inay martigeliso malaayiin dalxiisayaal ah sanad kasta waxaynu u jeednaa magaalada The Line ee uu Sacuudigu qorsheynayo inay noqoto mid ka mid ah mucjisooyinka dhisme ee qarniga inta aynan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin inaad like saartid sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran tan iyo markii ay boqortooyada Sacuudigu bilowday dhoofinta shidaalka dhaqaalaheedu waxa uu ku tirsanaa shidaalka iyo kheyraadka kale ee la xiriira waqtiyadii dambe waxa soo ifbaxay 2 arrimood oo dalal badan oo shidaal ka dhoofiya ku qasbay inay wax ka bedelaan qorshahooda mustaqbalka dhow iyo kan dheerba arrinta koobaad oo ah in shidaalka laga maarmi doono mustaqbalka ama uu yaraan doono isticmaalkiisu marka loo jeesto dhinaca tamarta cagaaran sababo la xiriira isbeddelka cimilada sidoo kale dalal badan oo uu Sacuudigu ku jiro ayaa iyaguna ogaaday in waqti aan dheerayn uu yaraan doono xaddiga shidaal ee la soo saari karo si haddaba ay u helaan il dhaqaale oo bedeli karta wuxuu Sacuudigu u jihaystay dariiqo la mid ah tan Imaaraadka Carabta oo dalxiiska ka sameeya dhaqaale xooggan oo uu mustaqbalka uga maarmi karo dhoofinta shidaalka sidaas looga gulgaaro Sacuudiga ayaa bedelay jihadii dhaqaale iyo qorshihii mustaqbalka wuxuuna sanadkii 2016 ku dhawaaqay qorshe loo bixiyay hiigsiga 2030 qorshahan mashruuca ugu weyn wuxuu noqday dhismaha magaalooyin casri ah oo loo bixiyay magaca Neom magaalada ugu hadalhaynta badanna waxay noqotay magaalada The Line ama magaalada u qaabaysan sida xariiqda toosan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa bilowga sanadkii 2021 ku dhawaaqay mashruuca magaalo casri ah oo ay u bixiyeen The Line wuxuu ku tilmaamay in ay noqon doonto tusaalaha magaalooyinka mustaqbalka waxa laga dhisayaa bartamaha saxaraha gobolka Tabuk ilaa iyo xeebaha badda cas ee Sacuudiga magaaladan ayaa fidsan baaxad sida xariiqda u siman oo gaaraysa 170 kiiloomitir waxaana dhinacyada ka xiga 2 darbi oo magaalada ku xayndaaban darbiyadan ayaa ka samaysan muraayad wuxuuna dhererkeedu gaarayaa 500 mitir si looga fogaado wasaqowga hawada The Line ma lahaan doonto jidad ay gawaadhidu maraan masaafada intaas la egna waxa isku xiri doona qadad tareeno oo koronto ku shaqeeya kuwaasi oo ku dhex wareegaya magaalada waxa loo diyaariyay in ay deegaan u noqoto ku dhawaad 9 milyan oo qof habka nolosha ee dadka degi doona ayaana laga dhigay mid sahlan oo adeegyada ay u baahan yihiin ay ka heli doonaan masaafo u jirta 5 daqiiqo taasi oo meesha ka saaraysa baahida loo qabo gaadiid lagu soo adeegto ama meelo fogfog lagu aado dhammaan tamarta la isticmaali doono waxay noqon doontaa tamarta cagaaran ama waxa loo yaqaano green energy si looga fogaado karboonka hawada wasakhaynaya waa magaalo dhammaystiran oo leh guryo deegaan ah hoteello casri ah iyo adeegyada bulshada oo hab casri ah loo qabanayo markii la soo bandhigay qorshaha magaaladan waxa uu u muuqday arrin aan suurtagal ahayn balse Sacuudiga ayaa si uu caalamka u tuso inay ka go'an tahay wuxuu bilaabay dhismaha The Line oo la filayo in uu soo gabagaboobo sanadka 2030 magaaladan ayaa u qaabaysan naqshad u eg sida film 3D ah dhismayaasha ayaa leh naqshado aan horey loo arag tareenada dheereeya ee magaalada dhex maraya ayaa lahaan doona xawaare ay wax ka yar 20 daqiiqo isaga gudbi karaan daafaha magaalada waxa aad lagu beerayaa dhirta muuqaalada naqshada la soo bandhigay ayaa u muuqda sidii doox dhir leh oo ku dhex taala bartamaha saxaraha lama deegaanka ah waxay yeelan doontaa beero waaweyn oo lagu nasto biyo dhacyo iyo harooyin gacan ku samays ah waxa sidoo kale laga hirgelin doonaa aalado yareynaya kuleelka cimilada maadaama magaaladan laga dhisayo saxaraha qaboojiyeyaashan ayaa samayn doona hawo dhexdhexaad ah oo isku mid ah dhammaan sanadka injineerada mashruucan wada ayaa ku tilmaamay in marka uu dhammaystirmo uu noqon doono mashruucii dhisme ee ugu weynaa taariikhda The Line
waxaa laga dhisayaa goob lagu tilmaamay in ay noqon karto bartamaha caalamka. waxay saaran tahay gacanka Caqaba. arrintan ayaa ka dhigan in ka badan 40% dalalka dunida marka laga imaanayo si loo gaaro magaaladan uu safarka diyaaraddu qaadan karo wax ka yar ama la mid ah 60 saacadood. marka aad kor ka aragtana waxaad u malayn kartaa muraayad dhinaca ku haysa bacaadka saxaraha. si loo sii diyaariyo sharciyada dalxiiskana, dalka Sacuudiga ayaa markii ugu horeysay sanadkii 2019 bilaabay fiisa dalxiis oo uu qofku ku soo joogi karo dalkaasi 90 maalmood si ay gogoldhigga koobaad ugu noqoto hindisaha 2030 ee Sacuudiga. waxaana la filayaa in si guud mashruuca NEOM oo ay magaaladan qayb ka tahay uu Sacuudigu keeni doono dalxiisayaal ka badan 100 milyan sanadkii. mashruucan ayaa waxa ku bixi doona lacag lagu qiyaasay $200 bilyan. dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in mashruuca magaaladan uu abuuri doono 460,000 oo shaqo. dhaqaalaha Sacuudigana uu ku kordhin doono $48 bilyan sanadkii. dhaqaalahan ayaa ka imaan doona dadka u dalxiis imaan doona magaaladan aysan dunida meel kale ka jirin mid la mid ah. waxay lahaan doontaa miisaaniyad aad u xooggan oo lagu talagalay ilaalinta amniga, waxaana qarashka ugu badan uu ku bixi doonaa aaladaha caqliga artificialka ah ku shaqeeya, kuwaasi oo ilaalo xooggan magaalada ka qaban doona si looga hortago falal dembiyeedyada kuwooda xitaa ugu yaryar, si magaaladu u noqoto mid aad ammaan u ah. sida ku cad website-ka rasmiga ah ee mashruuca NEOM, dhismaha magaaladan ayaa si rasmi ah u bilowday. marka uu dhammaadana waxaa xigi doona mashruucyo kale oo ay ka mid yihiin dekado, garoomo iyo deegaamo dalxiis oo dhammaan noqon doona kuwo uu Sacuudigu rabo in uu ka abuuro dhaqaale uu mustaqbalka uga maarmi karo ku tiirsanaanta shidaalka.